الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا روح كان الله يا نوشك معنى هذا ومركز صعبة نكان برلمان كاي أي شيء يعني وضرر حوضا وعلى فضل يعني وحيالها dadka lagu eedaynayo madaxweynaha lagu eedaynayo ayaa ka hadlaya inay wax baaran iyo wax asluub ku socda ay midnahay magaran waxa weeye waxa leeyahay idaacadaha warbaahinta waxaan sheegayaa dowshinka la sheegay oo ka keenay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dowshinkaasi waxa weeye wax baatila oo sharciga islaamka iyo midka dawladda midna faafsanay niman xumaan iyo masabid iyo qabiyaanad iyo xumaan isku bahaystay oo magacadooda la garanayo waxay ka dambeeyaan weeye oo ay magaranaysaa ay arrimahooda ay wadaan waxaan soo jeedinayaa haddii dalka sharci ka jiro xadgudubka nimankaas ay wadaan iyo xumaanta iyo magaranaysaa aflagaadada madaxweynaha qaranka ay markasta ku eedaynayaan oo koroshinka ah in dawladdu tilaabo sharciga ka qaado oo nimankaas waxa ay ciqaabta ay leeyihiin la mariyo niman xishoonaya maahan baarlamaan wixii lagu arki jiray maahan waa dad madaxweynahana ceebaynaya intiraas xun iyo khabiyaarad iswatana ka hadlaya dadka ay yihiinna waa la yaqaan waxay ku taabsan yihiinna waa la yaqaan arrintaas dawladda iyo ciidamada amnigu inay wax ka qabtaan tilaabadii ku habboon ayaa soo jeedinayna haddaan nahay dadka xalli wal caqdiga odayaasha waxgaradka oo Soomaaliyeed intaasaan soo jeedinayna ma garan waa tahay nabadoon Axmed Diiri adoo maarsan waa radio goobjoog waxaad sheegtay baarlamaanka xubnaha ku jira ee mooshinkan soo gudbiyay in loo baahan yahay in cadaaladda la marsiyo sidee hadalka u leedahay mar haddii baarlamaanku yahay hay'adii sharciga madaxweynahan iyagu doorteen haddana leeyihiin qodobada intaas leeg ayuu madaxweynuhu ku fashilmay mooshinkana taas ayaa gundhigu ah si arrinta marka ku cadeyn lahayd waxa lagu cadeynayaa beesha caalamka warka haysa adduunku waa ka hadlaya waa loo jeedaa dadka arrintan wada oo arrintaas riixaya waa dad magacyo la yaqaan leh oo qabiilnimo ku hadlaya maahan wax sharca iyo mas-uuliyad baarlamaan midna ku hadli mahayaan waxa weeye dad qabiilnimo u hadlaya oo xumaan raadinaya oo la yaqaano cidda ay u tacasubahayaan iyo meesha ay haddaa la idankeeda leeyahay eedaynta ay wada meesha ay ku salaysan tahay dal la garan kara weeye dawladdu sultaan bay leedahay waa laga warqabaa dadkaas dad yahay waa laga warqabaa magacadooda waa la yaqaan waxa fangaraynaya waa la yaqaan haddee wax qarsoon maaha adeer wax qarsoon ma hebel iyo hebel uma baahna dawladda sultaan bay leedahay sultaanka dawladda ka warqaba shacabka Soomaaliyeed baa og dadkaasi dad waxa weeye xumaan raadinaya oo madaxweynaha ceebaynaya oo eedayn aan cilmi ku fadhin wada weeye dadkaas marka haddii dalka sharci ka jiro dawladdu tilaabo sharciga dadka ha ka qaado sidaasaanu leenahay xalli wal caqdiga dadka oo waxgaradka oo Soomaaliyeed ee wanaagga u jeeda xumaanta sida dadkaas u shaqaynaya aan u shaqaynin sidaasaan leeyahay aniga ma garataane nabadoon Axmed Diiri waa raadiyaha Shabeelle mooshinkan ma mid ku cusub baarlamaanka inay keenaan laba xukuumadood bay ku rideen mooshinadii hore sharci miyay ahaayeen hadduu ka sharci darro yahay adiga xilligan aan joogno bal eeg waqtiga ay ku soo beegayaan iyo meesha ay u wadaan iyo yacniga sida ay u xagxaganayaan oo u garaafaynayaan waad u jeedaa kani mooshin ma ahan midka maamulada dhisan waad garanaysaa waxay eedaynayaan iyo waxay u socdaan
niman badan oo wax ka sheegin haddii cadaalad ay yihiin u baahan oo Soomaaliyeed baa jirta ma u socdaan waxay tilmaamayaan waa taqaanin waad maqlaysaan dowladdu waa og tahay adinku waad garataan warbaahintu waa og tahay war dadkaas haddii dalka amni ka jiro oo sharci ka jiro dadkaasi lama qaban laga qaado sidaasaanu leenahay haddii intaa la waayana hadda waa loo jeeda dadkaas wuxuu shaqaynaya jawaabtii ku habboonna waa helayaan haddii ilahayd waa tahay nabadoon axmed diiriye waa radio sky muqdisho su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay xubnaha hadda mooshinka keenay madaxweynaha waxay ku eedeynayaan qodobo dastuuriya in madaxweynaha uu hareer maray madaxweynaha daliilo ma yeelan karo oo baarlamaanka soo mala xisaabtami karaa هذا والله يا تاس سنين حرم وأوجه حرب فيه سنين حرم مش وأوجه حرب فيه أنا هو على قد رئيسة هل يبقى كوبيه يتصل بيتفضل هو هنا في المامو هل اللي رامي اللي يسويشه وقرن كرتان صحافته وحبوغان دولته وحبوغان ومده وحبوغان والله قرن يعادل وحيالها لو ايرين كرا اسكو دحانا marka ay ku soo beegeen iyo meesha ay u wadaan iyo sida ay hadaan la ku hooyay isku bahaysanayaan waa la gartaa waxyaalaha ay saameynta ku leh oo ayagu ay isku wasanayaan iyo saytu asubahayaan waa loo jeedaa hadda wuxuu waa yeelka laba yiraahdo ilkaana afkaas ilkaana akhriye waa garanaysaan xoogaan dadkii ummadda Soomaaliyeed oo hadalkiga dhageysanaysa waa yaqaanin ummadda intaas geedfadhiga meesha ugu wadaan waa yaqaanin cadaalad waa ka bannaanka ka yihiin eedaynta ay madaxweynaha ku eedaynayaan wax jira maaha ummadda Soomaaliyeedna waa og tahay dad maanta isku bahaysan weeye dadkaas ma garashada u sheegay warkayga saas weeye waana loo jeedaa waxay hadda noqonaysaa dadka hoteeladaas jiifa oo la garanayo weeye dadkaas wax badan baana muslimin wax badan baan lahayn wuxuu waaday wax ka socdaa wax badan baan lahayn marka khashifaad bay rabaan in ma garanaysaa ilmaana cad la bixiyo waa tahay axmed diiri haddaan ugu dambeyn ku weydiiyo mooshinkan dhowr qodob ayaa lagu xusay waxaa ka mid ah madaxweynaha in waajibaadkiisii uusan gudan in khiyaano qaran uu galay sida uu sheegayo qodobadii lagu qoray mooshinka cutubkiisii ee la gaarsiiyey gudoomiyaha baarlamaanka marka haddii aad dib ugu laabato inta madaxweyne xasan sheekh aan la dooran khudbadii uu jeediyey 6 tiir ayuu ku sheegay oo dowladdiisa ay wax ka qaban doonto ilaa hadda maxaad idinku ogtihiin oo uu qabtay 6daas madaxweynaha qaranka waa bini'aadam qofku wax ka noqon karaa laakiin waxyaalaha uu dalkan maanta ka qabtay ammaan buu ku leeyahay intaa la loo soo jeedo ma ahan maamul goboleedyadii uu dhisay si cadaalad ah oo la yaqaano midkii u dambaysay hadisay waad garanaysaan waxyaalaha kaleeto oo hadda anigu carabka aana ku dhufaray oo aan laga hadlaynin waad ogtihiin adigu waxyaalaha kaleeto oo aan carabka anigu hadda ka dhowranayo laakiin aan sheegi doono haddii ilaahay idmo arrintaa laga waantoobi waayo waxaan ku qaadanayaa tilmaan cad inaan bixiyo oo lidhaahdo waa hebel oo taasay ula jeedayaan oo qabiilkaasay ka kooban yihiin oo intaasay rabaan inay ma garanaysaa madaxweynaha ku ceedeeyaan inaan dhihi doono aniga iyo rag kale oo weliya baan kuu sheegaya madaxweynuhu waa cadaalad wax allaale iyo wixii hadda la talin u baahan intaa la sheegay ma dhamma ruuceed iyo taminkeed iyo wuquuyadeed midna ma dhamma waxaa la goobgoobaya waa laga badinhayaa waddan kalea laga leeyahay dadka waa ujeedaa meesha caladka waa ujeedaa adeer aniga haysii raadin meel dhow baa layga jooga aniga qiil baan halkaa ay jooga waxaan ujeednaa ka aamusannahay
ummadaas hala hadlo oo waxa loo sheego ummadaas hoteelalkiisa waxa loo sheego waxa ka waadooyo waxa ay wadaan dadku aqliga iyo waa loo jeeda saasa buleeyade ma garan